waxa maanta hoteelka Rays ee magaalada Boorma shirkad ku qabtay Axmed Catoosh oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Boorma shirkad shirkad uu qabtay ayaa waxa uu ka hadlay xildhibaanada shaqeyn xalay laga baxay guryahooda ka bacdina loo gudbiyay caasimada magaalada Hargeysa ee Jamhuuriyadda Soomaaliland hadalada xildhibaankana waxa kamid ah runtii wax weeyaan maanta waa bisha tahay 14 maalin axada waxaan maanta inaan ka hadalnaa tahay fal aan runtii ku haboonayn amniga iyo dawladnimada iyo wax weeyaan kala dambeynta ku haboonayn oo ka dhacay xalay toole magaaladeena taasoo wax weeyaan aan isleenahay xukuumadda ayaa dabada ka wada haddii aanay dabada ka wadin dadkan wadada xasaanad leh la soo doortay ummad matala degmada waa mas'uuliyiintii degmada weyn inta guryahooda loogu tago laga soo qaado sidii kooxaha haddana inta la qaaday gaari qofna lagu qaado oo la geeyo meel aynaan garanayn oo Hargeysa la geeyo waa waxaan dul qaadan karin aanu aad iyo aad uga xunnahay ananu cambaaraynayno dusha uga ridayna haddii Ilaahay dhaafo waxa weeyaan xildhibaanku xasaanad buu leeyahay dembi uu gali karaa waa qof bini aadana weey dembiga uu galo wax weeyaan gobol iyo degmo ku filan dembiga uu galo oo qaadi karaynu nahay ma dembi ka weyn baa jira dil uu dhacay dil baa ka dhacay gobolada iyo degmooyinka iyo dhulka Soomaaliland oo dhan waxa weeyaan halkaa uu ka dhacay baa lagu qaadaa laguna xalliyaa ma jirto meel kale oo loo gudbiyaa waxa weey runtii aad iyo aad baan uga xunnahay aad iyo aad baan u cambaaraynaa falka aan waxashnimada ee ka dhacay xalay toole magaalada una dul qaadan mayno waxaan leenahay waa in xorriyadoodii xildhibaanada sida ugu dhaqsaha badan leh dhanka kale maraan weydiinay xildhibaanka waxa uu kala socdo sababta loo xidhay xildhibaanadan ayaa waxa uu ku jawaabay wallahi anigu nimanka dambe ay galeen ma ogi waxa lagu eedeynayna cidda sidii niman argagixisa guryahooda ugu dhacay ka soo qabanaya ayaa sheegi doona dambiga ay galeen ugu dambeyntii waxa xildhibaanku cambaarayay madaxda gobolkan Awdal iyo madaxda ka sareysa ee Jamhuuriyadda Soomaaliland maamulka gobolka iyo maamulka degmada waa cambaareen ba dusha uga tuuraya waxa weey waa niman gabay roolka ay ku lahayn hawshan maamulka gobolka isaga madaxweynihii gobolka waxa weey waa inuu wax ka qabtay ahayd inuu arinta ka hadlaabay ahayd gudoomiyaha degmaduna oo ku feelgaroobaan u leenahay arintaasi waxa weeyaan arrimihiisa bay ahayd waa golihii councilkiisa weeyay ilaa welina hadalka ma hayno waanu la hadalnay telefoonkii ilaa abtuna weli noogama jawaabin arrimahaasi waxaanu sida ugu dhaqsaha badan ee bulshadiina soo dooratay aanu uga codsanaynaa leenahay adeernimo laba wanaad xildhibaankii aad soo dooratay waa inaad difaacday noqonaysaa haddii ay sidan kusii socoto la isu dul qaadan maayo loona dul qaadan maayo falka annagu ma nihin kooxihii maxaa ahayd faashka isku yiriinay dad xasaanad laban oo mas'uuliyiina dhici mayso in guryaha iyaga iyo lanoogu yimaado maxay ahayd dariiqyada lanaga qabto sidii dibjirta lana jiido waxa weeyaan waa in la noo soo maray dariiqeedii haddii aanu dembi galno waa dembigii halka uu leeyahay iyo dariiqadiisa loo maro haddana dembi lahayna waxa weeyaan waa in la naga daayo falkan qiimo darrada ah ee waxa weeyaan dadka doonaya danaha gaara leh ee malaha doonayo kordhisiimo inay ka raadiyaan fal iyo amni darro ay ka ridaan gobolka Awdal oo maxay ahayd gobolka ugu degan Soomaaliland waxa ay doonayaan inay ka ridaan oo ay ka doonaan waxyaalaha aan ka jirin baa laga raadinayaa annagu ma ogin gobolkan dhibaatooyin maxay ahayd ilaa xad sidan dadka loo baqay galiyo ma ogin shalay toole nin muwaadin ah meheradiisa loo gubay nin askari ah gubay way u gubay way nin ka hadlay weli miyanu leenahay dawladdu may tagin dadkii mas'uulkii ma tagin gudoomiyaha degmadu ma dul tagin gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdi Axmed ayaan weli ma dul tagin taliyaha qaybta iyo taliyaha saldhiguna ma ay dul tagin nin muwaadina oo meheradiisa jooga ayaa meheradiisa la tagay lana gubay halkee ka dhacdaa miyuu dagaalamay ninka muwaadinkii dad baa masaajid ka soo dareeray masaajidka geedgobla laga soo dareeray salaadii tukanayna ka soo dareeray dad mudaharaadeen moodayna bay dhahdeen warma waxa isku ekaaday dadkii mudaharaadeen dadkii salaada tukanayay baa isku ekaaday miyuu kala garan weyno dadka mudaharaadeen dadka masaajidka ka soo baxay aan meherada muwaadinka la gubeen waxaan leeyahay horta marka hore ka xunnahay waa bacad loo ahaa bacadlahaasi waxbaa gubtay waxna waa la baqtiyay ninkaas mudaharaad kuma jiro mudaharaad kama socon bareer cad oo kibira oo askari u bareeray taana waxaan leenahay waa si degdeg ah muwaadinka hantidiisii
ciddii loo raacayay waa in degdeg meesheeda loo saaro haddii aan loo saarinna dee nin walba meel buu ka raadsan doonaa wax weeyaan waa meherada la gubi doonaa la isuna raaci maayo haddii ilahay dhaafo aad iyo aad baad mahadsantahay cabdinaasir cali ile shabakada saraha news magaalada Boorama.